iska dhex baarin dadka kale, hana weydiin waxa ay ka aaminsan yihiin. Assalaamu calaykum, karaamo korkaaga ha ahaato daawade. Waxaan doonayaa inaan ka wada daawoono maanta cudur khatar ah. Waxaana kuu tilmaamayaa ama aan ku siinayaa talo, taas oo aan doonayo inay habsami socodka noloshaada iyo la dhaqanka bulshadaba aad doonayso inaad wax uga beddesho. Waxaan isweydiiyey su'aalo badan, kuwaas oo ah: maxaa keena bulshada ama qofka inuu xishoodo ama uu iska qariyo, weliba xishood ama isqarin aan loo baahnayn? Maxay uga fikiraan dadku sidoo kale jawaabta gadaasheeda natiijada ah ama reaction-ka dadka kaleeto ay ka bixi karaan? Su'aalahaas iyo kuwa la siimidaba markii aan uga fikiray si psychological ah waxyaabaha keeni kara iyo duruufaha dadka ku qasba, waxaa ii soo baxday dhowr jawaabood. Waxaana danaynayaa inaad markaad ogaato aad ku dhaqaaqdo sidaad u beddeli lahayd, maxaa yeelay waa wax dadka oo dhan ay ka sameyn yihiin, haba u darnaadeen bulshada kuwa dadka kale sida caadiga ah ula macaamila mar walba, haddii ahaa lahaayeen ardada, haddii ahaa lahaayeen dadka kaleeto oo goobaha waxbarashada ama goobaha kalaba jooga. Waxaad arkaysaa in goobaha waxbarashada markaad joogto ardada barnaamij ayaad weydiinaysaa ama aad rabtaa inaad kala doodo, ama qof ayaadba su'aal weydiinaysaa. waxaa laga yaabaa qofka aad su'aasha weydiido inuu jawaabta yaqaano, amaba uu sidoo kale tacbiiri karo, ama uu aragtidiisa say la tahay uu ka jawaabi karo, ha yeeshee taas beddelkeeda uu door bidayo inuusan kuu jawaabin ama uu ka aamuso. Markii aan fiiriyey psychologically say ku dhici karto waxyaabahaas, jawaabaha ii soo baxay waxaa ka mid ah in qofku uu qof kale iska dhex baarayo ama uu qof kale iska dhex daawanayo, taasoo ka fikirayo haddii aad ka jawaabto su'aashan ama aad ka jawaabi weyso inay qof kaleeto uu ka bixiyaa ama uu ka qaataa perception ama faham kaas oo adiga hadhoodii aan ku qalmi karin ama si uun wax ku saameynaya, taas oo ah xaqiiqatan waxyaabaha aad qofka hoos u dhiga mar walba oo aad maxal dhahay qofnimadiisa booska iyo u qalanta ee saxda ahayd ka dib mariya. War saaxiib, walaal, waxaad ogaataa laguma abuurin inaad qof kaleeto aad qanciso. waxaad u hadashaa oo u jawaabtaa si iskaa ah si aad u gaarto qofnimo buuxda oo dhammaystiran, taasoo ah qofka adigu aad tahay. Ha isku mashquulin, hana isdhihin qof hebel ayaa adiga kugu maqan, sidaa darteed ha iska dhex baarin qofka kale. hana isku mashquulinoo ha isku boojeynin qof kaleeto aragtidiisa ama sidoo kale waxyaabo kaleeto oo qof kale asaga si la ah. waxaa tahay kaliya sida adiga ah tahay ee Ilaahay kuu abuuray, sidaa darteed qof kaleeto fahamkiisa oo adiga ka aaminsan yahay ha qaadanin, muhiimna ha u arkin muhiim maahane. waxaa tahay qofka kaliya ee naftiisa garanaya ee marnabaha iska dhex baareen dadka kaleetooda, u daatooda adigana taada hore u sii wado. isla weynay aragtidaada oo u yeel naftaada maqaam, iskana soo saar wax ka dhex guuxaya ee aad u qalanto inaad bulshada kale kala mid ahaato. saaxiib, aan su'aal ku weydiiyo, yaa kuu matali doona naftaada haddaad iska sii daydo adiga maqaamkaaga? yaase sidoo kale ku matali doona mar walba oo booskaaga geli doona haddaadan adigu naftaada daminka aad ku hayso aadan ka sii daynin?
ah.